markale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidii aan horeba ogeysiska aan ugu shaacinay waxa aad la socoteen in hooyo soomaaliyeed oo ku dhaqan waddanka sweden carruur ay dhashay oo 7 ahi laga qaatay kuwaas oo hay-adaha carruurta ama socialka ay ka qaateen waddanka sweden meel gobol ah ayay deganeed. waxay usoo wareegtay stockholm waxaana habeen hore gabadhani ay dhashay canugeedii 8aad waxaana nasiib daro dhacday in canugaasi isla laga qaato markii ay sidaas umushay. arrintan waxaa ku jiray sheekh xuseen faarax oo ka mid ah imaamka masjidka rinkiby. sheekh xuseen faarax oo arrintan ku jiray ayaa suurtagal waxay noqotay inaan qadka muuqaalka aan ku tiigsado sheekh xuseen, waxaana suurtagal ii noqotay bal in uu sharaxaad kooban naga siiyo arrintani sida ay u dhacday. sheekh xuseen, qadka waa ka halaysan yahay, hawada ayaa ka maqan tahay, muuqaalkaaga lama arkaayo. soo dhawow. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله سبحانه وتعالى جل وعلا ومهدس كله حذيفي واندو sheekh xuseen adigoo aad u mahadsan sheekh xuseen adigoo aad u mahadsan qadka ka bax ee ku soo laaba sababtoo ah muuqaalkaaga ma hayno ka bax ee ku soo laaba adigoo mahadsan. arrinta aan ka hadalno waxay ahayd arrinta gabadha Soomaaliyeed ee caanka ah ee runtii muddooyinkanba loo wada ducaynayay Faadimo Buraanbur, ilaahay ha xifdiyo. awlaadeedii ayaa hore looga qaatay iyadoo umushay haddana canugeedii 8aad ayaa la qaatay. sheekh xuseen faarax imaamka masjidka rinkiby arrintan ayuu ku guda jiray, dadaalkeedana waa uu joogay markii hawshan dhacaysay falkan ilmaha lagu qaadanayna waa uu joogay. sheekh xuseen, soo dhawow. ولا الحذيفي واندو هي الحمد لله waxaa laga yaabaa khadka markii uu telefoon soo galo inuu baxaba dhici karta marka ka raalaho insha Allah ma warankaas. waa tahay sheekh xuseen, sidee wax u dhaceen arrintan gabadhan walaasheen ah warbixin naga sii. بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka ugu horeysa dadka walaalaha ay dhageysanaya dal iyo dibadba waan idin salaamaya. assalaamu calaykum. arrinkani waa arrin aad iyo aad maaragtay murugo u leh. ilaahay waxaan uga baryayaa biasmaa wasifaati alculya in ilaahay subxaanahu watacaala walaashaas ilaahay subxaanahu watacaala iyo walaalka gabadha dhalaba ilaahay subxaanahu watacaala labadaba murugta ilaahay subxaanahu watacaala allaha ka qaado. way jirtaa arrinkaas arrinka Faadumo arrin muddo soo socday buu ahaa. alxamdulilah magaalada Stockholm bay usoo guudhay markii ugu horeysay oo qolada kamuunka ay la xiriirtay qolada socialka aad bay usoo dhaweeyeen. alxamdulilah waxaana loo sheegay in maaragtay ilmaheeda ay haysan doonto. waa ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa, laakiin shalay ayaa wax badan isbedeleen. goobjoog baan ka ahaa, way ila soo hadashay. qolooyinka iyaga carruurta qaateena waan saragnay, waana ka wada hadalnay. arrinkaasi waxaa lagu saleeyey dacwadii hore ay carruurtii ilmihii deganaa magaalada maaragtay muxuu ahaa ay kasoo guurtay ayaa sabab u ahaa. marka sababahaasaana ilmihii loo qaatay. waa tahay canugan dhashay ma cisbitaalka ayay ugu yimaadeen oo ay ka qaateen? ha isbitaalkay ugu yimaadeen, way joogeen. marka waa Faadumo meesha isbitaalkay joogtay. alxamdulilah anaa marka qolada maaragtay meesha aanu degannahay socialka la hadlay una sheegay inaan isbitaalkaan joogo. waxay ii sheegeen inay maaragtay isbitaalka imaanayaan, saacadaasna imaanayaan. waa yimaadeen, laba dumar bay ahaayeen, waan wada hadalnay, hadal dheer baana dhex maray. laakiin iyagu waxay wateen qorsho ah inay carruurtaasi ay qaataan. sababta waxay yidhaahdeen warbixinaha ay soo gudbiyeen kamuunka ay deganeed ayaa waxayd warbixino maaragtay khatar ah oo maaragtay arrinkaas baana maaragtay iyaga arrinka hore isaga bedeleen. micnaha degmadii marka hore ka soo guurtay ayaa warbixin ka soo gudbisamaya? ha warbixinta waxay ka timaaday degmadii hore ka soo guurtay iyo qaybtii xanaanada ayaa waxay u soo gudbiyeen kamuunka aanu degannahay. arrinkaasi saacado badan bay iyagu ay maaragtay say ii sheegeen ay ka shirayeen, dhinacyo badan isla fiiriyeen, iyagana xiriir bay la soo sameeyeen.
taasi ayaa keentay inay yidhaahdaan annagu arrinkan maadaama uusan yahay waan uga adag yahay waxaanu qaadanay in sharciga la yidhaahdo LVO aan maaragtay ilmihi aan ku qaadano ilaa iyo maaragtay guddoomiyaha maaragtay dhinaca siyaasadda u qaabilsan degmooyinkan aan degannahay uu qalanka ku duugay arrinkaas ayaa sabab noo ahaa ayay ku tilmaameen marka waxayna yidhaahdeen maadaama arrinkan emergency yahay berrina aan isku nimaano oo maanta ahayd inaan maaragtay wixii imaanaya wixii kale aan ka wada hadalno waa tahay laakiin sheekh xuseen canugan yar ee dhashay bina yidhaahdeen soo ma ahayn in la nuujiyo canugii walaal waa arrin horta aad iyo aad maaragtay murugo u leh oo maaragtay naxdin leh qof walba oo maaragtay damiir leh ama maaragtay ama qofku rab ha ahaado aan dareemayo maaragtay xataa maaragtay dadkii isbitaalka ama maaragtay ama ka shaqaynaya shaqaalaha ahaa iyaga xataa ay saameyn ku wada yeelatay laakiin iyaga xataa dadka qaadanayay xataa way muujiyeen laakiin waxay yidhaahdeen waxyaalaha ay soo gudbiyeen oo maaragtay oo aan rabin inaan maaragtay dhinacan meediyadan dadka halo sheekh xuseen may maqashaad halo sheekh si fiican kula soconaa hay horwad هروت وحن كعصرنا دتك وعايش حسين أنا وعيتان كجوجان إن شاء الله هاي marka alxamdulilah dadkii dhan baa warbixino iyo raadinaya marka waxaan xagee baan maraya adigoo raalli ah waxaan maraysay markii gabadhii la yimiday ilmihii ay ku yidhaahdeen waan qaadanaynaa oo aad tiri ilmaha inay nuujiso oo hala joogaan aad tiri maasha allah waan isla soo qaadnay sababta wuxuu sharciga dhigayaa oo sharciga Suudaan ka mid ah oo qodobka aan soo qaatay ka mid ahaa in hooyada iyo ilmaha meel in lagu xareeyo in meel maaragtay horay oo dad badan oo isaas ugu dhacdeen aan uga shaqeeyay in meeshaas lagu iyaguna ay baaritaankooda ku bilaabaan laakiin iyagu waxay ku andacoodeen oo arrinka ahaa sababta waxa waaye waa sharci dawladeed dhibaatooyinka ay maaragtay ka yimaadeen dacwada iyo waxyaalahaas ayaa waxay keeneen arrinka annagu waxaanu arnay emergency haddana ma geli karno sababahaasay keeneen marka isbitaalka xataa waxaan sii joognay ugu yaraan ilaa iyo maaragtay 2 saac ku dhowaad ayaanu sii joognay waa tahay marka hadda ilmahaas yaa gacanta ku haya ilmahaas dad baa loo geeyay ay leeyihiin dad khibrad u leh baan u geynay bay leeyihiin oo maaragtay xataa iyaga kamuunka ka tirsan xataa carruurta dhalada ku jira maaragtay xanaaneeya sida ay noo tilmaameen waan jecleen waayo waa arrin aad iyo aad xanuun u badan qof walba oo dee kollay damiir lena uu dareemayo oo aan maaragtay aan laga sheekayn karin marka maadaama waxyaalahan ay soo gudbiyeen ayay maaragtay iyagu ku andacoonayeen ay sheegayeen oo ah maaragtay kunkii hore ay deganeed ama degmadii hore ay deganeed ay soo gudbiyeen waa tahay marka degmadii hore warbixintay kasoo gudbiyeen ma idiin sheegeen oo ay arrinkan keenayo in xataa ilmo dhashay hore laga qaato way sheegeen arrimo maaragtay khatar ah dee horey ay u sheegeen ama maaragtay ama ay waalidka ay ku tilmaameen iyo carruurtii hore oo dacwadoodii waxyaalo badan oo isku jira ayaa ka mid ahaa aan u aragnay inay maaragtay ay khalad tahay maadaama dee sharciga walaal marka ugu horeysa walaalaha maaragtay na daawanaya waan ka raaligelinayaa sababta teleefonkayga awalba soo iska mashquul badnaa ka raaligelinayaa marka waan u sheegnay inay arrinkan maaragtay ay isku dayaan sidii ay maaragtay hooyada iyo ilmaha ay meel isugu geen lahayn maadaama aan horeyna aan oga shaqaynay marka iyagu waxay ku andacoodeen anoo raba inaan sii guda gelin maaragtay arrimaha jira oo maanta aan kula hadlaya xataa kulan baan annaga iyo waalidka aan wada yeelanay iyo qolooyinkii wayna tilmaameen waxay yidhahdeen maadaama waalidkaan horeyna aan aqoon dacwooyinkana laga soo gudbiyey annagu waxaan rabnaa inaan maaragtay annaga iyo waalidkiina maaragtay oo iyagii waxaan dhahnay inaan maaragtay utrain inaad idinku si khaas aad arrintii aad u bilowdaan oo baaritaan ah marka insha allah khayr badan baan ilaahay subxaana watacaala ka rajaynaynaa waayo waxa qadiyaddu waxay ku lug leedahay carruurtii hore oo la qaatay iyo kelimooyinkii iyo hadalladii iyo dhinacaas sanvikan oo magaaladan aan hadda aynu joogno wanaag baa na dhex maray laakiin wanaaggii iyo in maaragtay ilmihii la siinayay waxaa bedelay arrinkan gadaal ka yimaaday walaal xudayfa waa tahay
adigoo aad u mahadsan marka waalidkii ma la kulantay caruurtan dhasha Faadumo iyo odageedii iyo ehelkii maxay dareemayaan arrintood waa sidee waan kuu sheegayo waalidka waan goobjoog baan ka ahaayo qofkii ugu horreeyey ay maaragtay ay soo wacaan baan ahaa oo maaragtay arrinkaas joogay iyo aniga iyo walaal cabdirashiid oo isagana khayr badan allahasi isagana khadka ku jiray oo maaragtay muxuu ahaa dhinaca soshaalka iyo maaragtay heer sare ka joogay arrintan dacwadan aniga isagaan isla wadnay iyo looyaradooda laakiin anigu waxaan ahaa shakhsiyan qofkii ugu horreeyey ay la soo hadlaan waana u imaaday waana is aragnay maantana waan is aragnay dee waa dareemi kartaa waalid ilmihiisii laga qaaday oo sheekh Cusenow arrintan muddo ayay soo jiitamaysay gabadhan qayladhaanteedii dunida meel kasta ayay gaartay dhibaatada haysato meel kastana waa laga hadal hayay arrintan goorme ayay idin soo gaartay markay Stockholm timid mase hore ula socoteen horey baan ula socday ilaa iyo intii aysan weekend ay gabadhu ay maaragtay arrinteeda dacwadeeda ay socotay dhowr jeer baan aniga cabdirashiid anagu aan tagnay oo maaragtay waqtiganaga iyo juhdiganaga aan ku bixinay hataa intays arrinkan dhicin waxaa jiray ilmaha labada waaweyn in maaragtay gurigooda lagu soo celiyo afarta yaryar iyaga xataa kulankii u dambeeyey oo bishii June dhacay oo samarkaas soo galay waxaan isla afgaranay in maaragtay muxuu ahaa la bilaabo in wada shaqeyn maaragtayna waalidkii iyo maaragtay muxuu ahaa iyo waalidkii iyo carruurtii marka arrimahaas oo dhan baa jiray tan kale oo ah in ilmaha caloosha ku jira taasina waa horey baan aad oola socoteen oo dee iyadaaba ka hadashay marka wada shaqeyn badan baa nala socday juhdi badan baanu gelinay looyaradu way ku jireen wax walba waa lis imtixaamaya dad muslimiin baynu nahay ilahay wuxuu leeyahay xasiba annaasu an yutraku an yaqulu aamanna wahum laa yuftanuun dadku waxay u maleeyeen inay yidhahdaa ilahay kalan reeyo waa la imtixaamin gabadhan iyo familkan waxaan oran karaa imtixaan ilahay subxaana watacaala baa ku dhacay wamaca dalika waana dad maasha allah markaad fiirisid sabar iyo dulqaad